tababar muddooyinka u dambeeyay shaqaalaha kaadhka codbixiyayaasha ee komishanka doorashooyinka Soomaaliland uga socday jaamacadda Sanaag ee degmada Xergaabo ayaa maanta la soo gabagabeeyay. Waxaana halkaas lagu dhaariyay shaqaalihii tababarkan qaadanayay oo iyagu ahaa kuwa qaybin doona kaadhka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland ee komishanku ka bilaabi doona degmooyinka xeebaha gobolka Sanaag. waxay ugu bilaahaya waxay ugu tollaahaya inaan shaqada kaadh qaybinta u gudan doono si daacadnimo ah hawlkarnimo ah iyo dhexdhexaadnimo ah. waxaan ku dhaaranayaa inaan kaadh qaybinta kaadhka siiyo qofkii lahaa oo keliya qofna aan kaadhkiisa qof kale ugu dhiibin. dhaarintaasi kadibna waxaa halkaasi ka hadlay komishanar Cabdiraxmaan Cismaan Aadan Weyd oo howlwadanada komishanka doorashooyinka la sii dardaarmay. galabta waxaa halkan ku soo dhamaaday tababarkii 13 goobood ee gobolka Sanaag ee xeebaha ku teedsanaa ardaydii ka shaqayn lahayd ee jaamacadda Sanaag laga qaatay kuwaas oo qaadanayay 2 cisho oo isku xiga oo tababara oo siinayay Macalin Ismaaciil oo iminka garabkayga midig taagan si guul leh u soo dhamaatay. markii ay dhamaysteen tababarkiina waxaanu galabta ku dhaarinay kalaas ka mid ah kalaaska jaamacadda Sanaag oo qaadiga ayaa dhaariyay Xuseen baa dhaariyay. alxamdulillah rabbil caalamiin mashruucaasi si fiican buu soo gabagaboobay. baritoolana hadii la yiraahdo waxa la qaban doonaa xafladii launchingka ama lagu iclaaminayay in 13 goobood ay ka bilaaban doonto 29 bisha kaadh qaybintu waxaana lagu qaban doonaa insha Allah binaal kariim saan rajaynayo hoolka jaamacadda. taana waxaan jecelahay inaan mar labaad aan ugu baaqo ama aan ku dhiirigeliyo dadweynihii iska diiwaan geliyay 13 goobood in ay kaadhkooda ka qaataan goobaha iska diiwaan geliyeen si ay xaq ugu yeeshaan inay codeeyaan doorashada soo socota ee insha Allah u dhici doonta November 13keeda sanadkan ku jirnay 2017. waxaan ugu baaqayaa iyana guud ahaanba gobolada Saaxil iyo Awdal dadkii iska diiwaan geliyay inay iyaguna u bilaaban doonto isla maalinta 29 bisha Afraad 2017 inay iyaguna kaadhkoodii qaataan si la mid ah sida gobolka Sanaag xeebihiisa aan ugu gawaabinayno si ay iyana u yeeshaan xuquuqdooda ah inay doortaan cidda ay doonayaan inay maamulka dalka ama madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dalku ka ay doonayaan inay u codeeyaan si ay ugu codeyn karayaan. Barkhad Maxamuud Geedi, Bulsha TV, magaalada Xergaabo.